go'aan habeenimo lagu dhawaaqo Soomaalidu waxay tiraahdaa sacabka haddaan xiriir ku jirin maxaa habeenkii loo tuntaa haddaan la doonayn in magaalada la gubo haddaan la doonayn in namada dhibka geysanay dadka leeyahay in la arko haddaan la qarinin maxaa go'aanka habeenimo lagu dhawaaqo Leeyahay Cabdiraxmaan Cirran weydiinaya aad baan u xariisan ma hadli karaa waxaan marka hore aan tacsiyadeynayaa dadkii aniga soo doortay ee xalay sidii bareerka ah maadartay magaalada loogu laayay waxa la ilaahay u naxariisto waxa kaloon ilaahay uga baryaa inuu ilaahay caafimaad u siiyo inta dhaawaca iyagana sida bareerka xabadda loola dhacay baan iyagana maadartay ilaahay u booga dhageela waalidiinta iyo dadkii annaga na dhalay ee ciyaalka dhalay ay namada ay hablaha la laayay kuwa la dhaawacay dhalana waxa la raqi tama waana wala iskaga dambeynaya sabra ragaasina rag iyagoo la dulmaya la laayay ayay xisaabsan yihiin oo iyagu maanta iyaga inaga maadaragtayeen dee waxa ugu weyn qofka bilaadanka raadiyaa waa inuu ilaahay agtiisa wax fiican ka helo wax rajaynayna ilaahay agtiisa wax fiican ka helaan intaa markaan ka imaado anu muddo saxaafadda lama hadlin hani magaalkan joogay waddanka isbedel baa ka dhacay isbedelkii ka dhacayo honeymoon buu ku jiro waxaan islahaa ha afartan baxo laakiin aad baan uga xumahay inuu ku afartan baxay inuu dhiig daadiyo oo weliba dhiig qorshaysan u daadiyo dadka salal iyo awdal degani boqolaal sannadood ay wada deganaayeen dhulkaa wada deganaayeen maxay iskugu qabsan waayeen xafladaha iyo xeerasha iyo arrimaha iyo ciyaarooga maxay iskugu qabsan waayeen maanta keenay markii xukuumadda Cabdiraxmaan Cirro ay timiday maxay iskugu qabsadeen su'aasha madaxweynaha weydiinaya waxa iskugu qabsan isaga ka soo jawaabiyo waxa cusub iskugu qabsadeen waxa jiray qorshe aan madaxweynaha kala hadlay oo in badan ka hadli jiray laakiin toos u balmaray ayaa maanta fulintiisa ay buurma ka socotaa halka waxa kaga hadlan oran jiray hay'adaha ammaanka iyo kuwa dhaqaalaha reer awdal waa laga ilaaliyaa dawladda Cirrana markaan dhisayday ku tabcayna waxaan ku nidhi war kuwa ku jiraan laakiin waa laga ilaaliyay sababtii looga ilaaliyayna saakay buurma ka dilaacday oo waxay ahayd inaad dadka la laayo ayee ka waxaan la madaxweyne aad baan uga xumayn adigoo sanadaan jirin maad aragtay dhiig faraa lagu geliyay maanta wax laga filayna ma hayn waxaad ogeedeen in xukuumaddu xeer ka beesha Ciise oo ay go'aan ka soo saartay oo wasiirka arrimaha gudaha ka akhriyay magaalada Seylac la yiraahdo waxaan halka garanayay maalintii go'aan ka soo saareen inay halka u socdaan tahay inay labada beelood isdilaan oo sidii caruurnimadii waad garanaysaan mucooyada loo jeex jiray soo garanaysaan ee kolnaadna mucooyada wata scar waa ka baabiyaadna mucooyada wata mucooyada marka hore wasiirka arrimaha gudaha jeexay mucooyadii labaadna waxa jeexay Axmed Yaashi Cali yalla salay jeexay labadii markay isdili waayeen xukuumaddu waxay goostay inay dadka iyadu laysay goosto waxa yaab kale ee aan aad ula yaabo waxa kamid ah ilaa shalay ilaa xalay albaab kamid ah dadka madaxda ka garab dhow madaxweynaha albaabku way furi waayeen telefoon waa la qaadi waayay go'aan habeenimo lagu dhawaaqo Soomaalidu waxay tiraahdaa sacabka haddaan xiriir ku jirin maxaa habeenkii loo tuntaa haddaan la doonayn in magaalada la gubo haddaan la doonayn in namada dhibka geysanay dadka leeyahay in la arko haddaan la qarinin maxaa go'aanka habeenimo lagu dhawaaqo Leeyahay Cabdiraxmaan Cirran weydiinaya
maxaa adoo dadkii walaalaha ahaayee doodu ka dhaxaysay aan wada hadashin oo dad reer Somaliland iyo kuwa Soomaaliyeed oo walaalo oo wax garad ay jiraan oo waxa dhib ay kala tabanayaan ama waxa dooda keenay kala hadli kara oo dhexdhexaadin kara oo u garsoori kara oo run u kala sheegi kara ka qaldan ay buuxaan maxaa keenay inaad kulba wasiir adigu aad wasiiradaada kamida aad tiraado cali caashina garle calina garle madaxweyne inuu qorshe ku diyaarsanaa jiro waxa ku cadeynaya ciidanka militariga ee magaalada sii gelisay waad ogtoo shalay baad halka ka mudaharaadaysi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ciidan militariga halka militariga agtiisana deganoo maalinta mudaharaad ku dhacay hal askariyo militari kamid ma soo gelin magaalada Hargeysa muddo 7 maalmood oo laascaanood uu ka socday maxaa la yiraahdaa barnaamijii hore ciidanka mudaharaadiyeenna hal askariyo militari kama qayb gelin booliska ka qayb geliyay adigu laagi shalay isgoys kasta iyo meel kasta waxa dhigtay rag aan tababar haysan oo aad shalay soo qaramaysay oo jabhada ah ayaad magaalada gelisay oo ciidan militari ku goryaan ku xariisnaa kuwa dadka laayeen waa kuwa weeyaan anigu talo waa kuwii bidoo talo ku sii waxa kugu hori war dhibaatada ruudkeega dawe arintaana si fiican uga fiirso gobolka Salna beelaha wada dega xilalka u qaybi baan kugu hori ad 8 xil ugu sareeya afarna rag reer shaqo saaqad u dhibtay inta kalena ciisaya geeda bursiga tabashadiisu halkaas ay fadhidaaye kuwa ragga beesha dhexe u dhiibtay ka qaad oo u dhiib baan kugu hori taladeedii taaseed walna u tilbaad ugu tir madaxweyne saddex isha ka bacdina Cabdulla Sandheera ku dhawaaqay maxaa la yiraahdaa yidhi kuma shiri kara ciise sheeric kuma shiri kara haw yaad u dirtay yaa ka odeeyay shalay bay odayaashu ku yimaadeen daraatii ku horeysay odayaashu ku yimaadeen go'aan bay ku keeneen iska daayina dad wax garado reer Soomaaliland ama dad kale ka daba dirtay xitaa wasiiradii kuwii gobolka soo jeeday maadarorin waa odayaashii go'aan bay dhiibeen oo ismaanaan afkarane ka daba tagay maadarorin baabuur iyo kaariyaal badka dabarta shalay 4-5 barkii galnimo markii gaadhay rasaastu qoriga aakaa ku bay bilaabeen waxa ku bilaabantay qoriga ugu weyn ee magaalada yaalla ku bilaabantay wali fursad baad haysataa madaxweyne fursad ayaad haysataa aad dambiga aad gashaad ku sixi karto oo aad ka qaban karto oo maanta aan ku soo jeedinayaa imika ciidanka magaalada ka soo saar dadka leenaya dhammaan ragii gabadh falada galayna soo qabo maxkamad soo istaaji madaxweyne marka jananka booliska iyo ka militariga iyo ka sirdoonka aad reerkiina ka dhigatay ku xigeenadana aad reerkiina ka dhigatay ayaan garanaynaad waxa u socoto laba constituency wadanka waa ka dagaal ka dhacay constituency-ga dhulbaanta la oran jiray waa ka tagay u tagay dawladdaada markaad qaybinaysay waxaad u qaybisay sidii maalintii 2017 oo Muuse dawladda qaybinay Muuse Biixi wuxuu u qaybiyay xuduudda ugu shaysa Somaliland ee garowe dusheeda saaran ilaa ta ugu shaysuu qaybiyay adigu laakiin xuduudda halkan joogto og leeyahay wax qaybinaysa sidaad u qaybisana waad ogtay madaxweyne anu meehi ragga dhiiga dadka